ما شاء الله ما شاء الله شيخ الله كبركيو ان هذا اللذا قيمها إيقايا له إله الرحمن كيكو ولايا ماركتي sahay ka dhigta had iyo goor niyada ku hayana ilaahay ha naga dhigo mar labaad waxaan u ducaynaynaa afarta qof ee isguursaday ilaahay guryahooda barako iyo nimco iyo maaragtay xasilooni ilaahay ha dhigo ilaahay is afgaransho iyo wanaag adduun iyo aakhiraba ah anfaca ilaahay ha ku camimo mar labaad mar saddexaad sheekh haddaan maaragtay waxaa maasajo badan ba igu soo dhacayo waxaa laleeyahay fawsaanow ilaa hadda gabdho wiilasha un baad qaabka isu diyaariyaan iyo maaragtay aad dareenoo wada wadnaayo xagga gabdhaha wiilashu waxay leeyihin gabdhaha laftooda sidaba isu diyaarinayaan wiilalow idinma ilaawin laakiin waxaan doonayaa inaan arrintan iska yaro dhameeyo su-aasha arrinta iyada aan halkii kasii qaado sheikh marka uu walaalku uu labadaa arrimood eed aasaaska uga dhigtay rasuulka inoo xariiqay uu maaragtay sahay ka dhigto uu ku baadi doon tago ka soo qaad inuu isdultaagay familigii iyo gabadhii kuna qancay oo u arkay waxaa jira haddaba dad had iyo gooraale ay ku yara adag tahay ilaahayna waatuu yihi faida cazamta fatawakal cala allah isagii oo qanacsan qofkii oo uusan haddana taladii qaadan karayno maaragtay go-aankii ninimada laga rabay ilaan isaga arrintan maaragtay qaacidul fiishka ah arrintan inuu kala tuuro loo baahan yahay gabadha uga dambaynaysa family uga guursanay uga dambaynayaan maxaa la yidhahdaa familygu isagoo ka dhashay uga dambaynayaan had iyo gooraade maaragtay aan go-aan dhalinyarada qaar baa jirta aan go-aan culus qaadan maxaa ninnimada wiilka wanaagsan ee mutadayinka ee soo arkay labada arrimood aad soo sheegtay maaragtay ku gudaya ee toosh ka dhigtay wax ku bidhaansanaya ee mugdiga kaga caradaya markuu gabadhii arkay oo ku qanco oo u yimaado maxaa looga baahan yahay caziima iyo ku dhaqaaqid iyo calool adayg maxaa looga baahan yahay hawshan alxamdulilah markii intaan la isguursanin mise markii la isguursado intaan la isguursanin hadduu aad ku noqoto sheikh wiilkii gabadhii wuu soo helay wuxuuna arkay maaragtay inuu rabo maaragtay inuu gabadha iyadaa u guursado marka kolleyba dee hawluhu waynu naqaanaa inagu gabadha familigeedii baa laga doonaya isagii baa weli gabadhii wuu ku qanacsanya inuu maaragtay uu soo doono laakin dadka qaarkii ilaana wuu u fududeeya dadka qaarkii oo maaragtay go-aan adag bay leeyihin oo markiiba way ku dhaqaaqaan qaarna isagoo wixii doonaya ayuu maaragtay ay wakti dheer ku qaadataa marka loo ururiyo labadaaba marka lasoo ururiyo maxaa looga baahan yahay ninkii haddii uu go-aan kaa goostay inuu gabadhaa guursado si aan wakti uga lamin maxaa la gudboon sax weye intaan la isguursanin weye sheekadu sax weye waxaan taladu ay tahay horta sidiisaba ninka ragga ah tilmaamaha iyo sifaadka la doonayo inuu ku tilmaanaado horta waa wax loo yaqaano alcaziima waa go-aanka adag waa goorma waa qanaaco kadib mar alla markaad soo sahmisay oo aad ku qanacday oo gabadhi aragtideedii ku qancisay oo ay diinteedii iyo akhlaaqdeediina ku qancisay reerkeediina ku qanciyey ehelkeedii intaa wixii ka dambeeya ninka ragga ah ma taradudo ninka ragga ah ma baqo guurku waa god afyar oo ay godkaa gudihiisa ku jiraan abeeso iyo masas iyo sun iyo malab iyo subag iyo sokor cusbo hal shay unbaana kuu soo bixi kara aslanba qaybka adu ma ogid wixii alle agtiisa ka qoranna adigu ma ogid waxaa lagu raaciyey wahuzii ilayki bijizci nakhla adigu asbaabta la imow sababka adigu fuli
waxa adigu kuu muuqanayood arkayso sharcigu kuu fasaxay markaad ka soo baxdo natiijada ilaah baa iska lehe adigu ha taradudina tawakkal cala allah walidaalika ilaahay markuu ammaanaya faidaa nabigiisa calayhi salatu wasalaam markuu dhiiri gelinaya faidaa cazamta fatawakkal cala allah marka qofkaa waxaa laga doonayaa inuu alla u tala saarto arrinta inteeda kale inuu istikhaaraysto oo uu tukado inuu ilaahay baryo waana midii aan lahayn ducadan maxaa liya baaraka allahu laka wabaaraka calayk wajamaca baynakuma bikhayr waa midii aanu lahayn wey inkastoo su-aalaha moodaynaya taqdiim iyo ta'khiir ku jiro oo saa in loo soo bilaabo ay ahayd laakiin haddana dhibaato ma leh waxaan rabaa inaan dhaho qofka waa inuu ilaahay tala saarto tabaaraka wa tacaala oo uusan taradudin istikhaaradana uu badiyo arrintana intaa wixii ka dambeeya uu ilaahay u daayo asagana rujuuladii iyo raganimadii iyo mas-uuliyaddii aan su-aashii hore kaga jawaabnay inuu horay oogu socdo saas ayaa laga doonayaa ama hadduu taradududo haddee soomaalidu waxay dhahaan nin iyo xaas baa guri la iskugu geeyayo markaasay soo eegeen oo soo firfiiriyeen gabadhii baa marka waxay tiri baa la yidhi yaa laga sugayaa hawsha inuu bilaabo marka ninkii dibigiisa la qalay marka inaad halkaa gaadha ma aha xaas guriga lagugu keenay iska ag fadhiiso maxay tahay waa inaad waajibkaaga garanayso oo aad raganimadaada aad garanayso oo adigu inaad mas-uul tahay aad garanayso marka ilaahay tala saara tabaaraka wa tacaala iskana daa taradudka wallahu aclam